waxaa idin kala soo hadlayaa xarunta qaran ee ka digista halis wadareedka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma. Halkan waxaan ku soo gudbinayaa digniino iyo talo bixinno xaaladaha degdega ah ee El Niño ee dalkeena ku soo wajahan. Roobab mihigaan ah ayaa laga cabsi qabaa in ay ka da'aan dalkeena. Si gaar ah goobaha laga cabsi qabo waxaa ka mid ah wabiyada, dhulka buuraleyda ah, kuwaas oo ay labadoodaba ka dhalan karaan fatahaado iyo daadad. Waxaa habboon walaal oo waajib inagu ah inaan fariintan faafinno si ay u gaarto walaalo aad u fara badan oo Soomaaliyeed si ay u yaraato khataraha ka dhalan kara. Digniino iyo talo bixinno xaaladda El Niño ee isbuuclaha ah 28 Sebteembar ilaa 4 Oktoobar ee sanadkan 2023. Toddobada cisho ee soo socota oo ah isbuuca ugu dambeeya bisha Sebteembar iyo isbuuca ugu horeeya bisha Oktoobar ee sanadkan 2023. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhammaan 18 gobol ee dalka lagu wargelinayaa inay ka feejignaadaan khatar ay suurtagal tahay inay ka timaado roobab xooggan ee isbuucan la filayo. Roobabka la saadaaliyay gobolada Bari, Sool, Sanaag, Waqooyi Galbeed, Nugaal, Hiiraan, Baay, Bakool, Shabeellada Hoose, Jubbada Dhexe waxa ay geysan karaan khatar cabirkeedu sareyso. Haddaba bulshooyinka ku dhaqan goboladaasi waa inay taxaddar gooni ah ka muujiyaan khatarta fatahaadda iyo daadadka roobka ka imaanaya. Dhammaan gobolada kale ee dalka roobabka loo saadaaliyay waxay geysan karaan khatar cabirkeedu dhexdhexaad tahay. Haddana waxaa habboon in bulshooyinka ku dhaqan goboladaasi inay ka feejignaadaan khatartaas. Digniino waxaa looga digayaa bulshada ku nool gobolada kor ku xusan iyo webiga Shabeelle hareerihiisa inay aad uga feejignaadaan saameynta daadadka roobka ku yeelan karo naftooda iyo hantidooda, gaar ahaan gobolada Bari, Sool, Sanaag, Nugaal, Waqooyi Galbeed, Hiiraan iyo Shabeellada Hoose. Waxaa sidoo kale looga digayaa bulshada ku nool goboladaasi inay iska ilaaliyaan togaga biyuhu maraan, taas oo khatar gelin karta naftooda. Sidoo kale waxaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed looga digayaa inaysan deegaamin ama guryo ka dhisan meelaha biyo mareenka ah si ay u badbaadaan naftooda iyo hantidoodaba. Talo bixin bulshooyinka miyiga degan waxaa talo lagu siinayaa inay iska karkariyaan biyaha roobka intaysan cabin. 2. waxaa sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan webiga hareerihiisa iyo meelaha biyo mareenka ah lagula talinayaa in ay wax kasta oo ay heli karaan iskaga buuxiyaan meelaha webiga uu ka jilicsan yahay si loo yareeyo saameynta khatarta fatahaadda. Yunus Duraan Cali, xarunta qaran ee ka digista halis wadareedka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma.